وايد السلام يا أصحابتا ما والبادونك تكتشوكتين وولاشينا ملكي joogso wax fiican baa ku dhaafayo wax wanaagsan baa ku dhaafayo maanta waxaan rabaa aan codsi baan leeyahay asxaabta qaaliga ah ee idaawanayso kuwa igu xiran ma ahan kuwaas waxaan leeyahay thank you laakiin kuwa oo idaawada ayay ku socdaa clipkan waxa weeye please subscribe-ka like-ta iyo share-ka waxay ii tahay dhiirigelin yaa liiga xaasidin waa walaashiina mulki la socda maanta mawduuc waxaynii wadaa oo ka hadlayo qoyska wanaagiisa saad u samaysan lahayd qoys fiican markaa mulki inta badan waxaan jeclahay gabdhaha walaalahayga inaan dhiirigeliyo markaa please anigaas aad ii jeediin waxaan ku hormaray maasha allah tabaarak waa qalbiga wanaagsan xaasid ma ihi qof walba waxaan la jeclahay wixii aniga aan haysto qof walba waxaan la jeclahay wixii aniga aan u awoodi karo runtii marka qofka markuu noocaas yahay waxa weeye wuu hormarayaa laakiin in yaroo xaasidnimo hadday kugu jirto iyo xiqti waxaad ogaataa noloshaada mar walba hoos bay galaysaa marka walaashiina mulki idinkaa meel fog i gaarsiin kartiin waxa weeye yaa lii eegin qabiil yaa liigu eegin waxa weeye wax kale just haddaad ka heshay waxyaalaha aan kuu soo gudbinayo koley waaba i daawanaysaaye subscribe-ta haygala yani gees marin waayo kulli acmaal biniya meeshaasaa laga socdaa soomaaliyey meeshan aan nadiifsanno meesha markaan nadiifsanno ayaan qof walba meeshu wuxuu hiigsanayay iyo wuxuu doonayaba uu gaari laakiin meesha markay wasaq kaa tahay oo aadan qofna aadan waxba u rabin aadan u jeclaysan yani waxaad ogaataa adigana noloshaada waxaad ku dhammaynaysaa kugu dhammaanaysaa ciil hagadaamo maalin walba noloshaada meel walba meesha kale ka xirxirmayso ma rabta noloshaada inay kuu furfuranto meeshanaa laga socdaa soomaaliyey meeshanaa laga socdaa waaba i daawanaysiina viewgayga iyo subscribe-kayga waxa badan viewga meel fog idinka ay gaarsiin karteen weli special gabdhaha aan aad u taageero ee soomaaliya gabar soomaaliyeed oo walaashiinaan ahay waxa weeye idinkaa hore ii wadi kartiin ani ma qiimeeyo qabiil ma qiimeeyo nin ma qiimeeyo wax kale waxaan qiimeeyaa qofka anisaan uga helay qofka shakhsiyadiisa ma ka helay qofka wuxuu soo gudbinaya ma ka helay muu i qanciyey isla markii subscribe-kan saaraa muu i qanciy soo ma ahan maba daawanayo waa kasi socon way fahamtay sooma laakiin adoo i daawanaysid ilaah baan kugu dhashay subscribe-ka ha igala marin intaasna waxa weeye codsi oo ka timid walaashiina mulki la socda mawduuca aan inii soo gudbinaya insha allah raba inaan taxanay aan ka dhigo insha allah jimco kasta hadduu alla yiraahdo oo nafta ilaahay hadduu noo daayo waxaan rabaa maalin walba inaan mawduucan aan ka hadlo isagoo googoos ah maanta qayb baan ka hadli insha allah jimcada soo socota qayb kale saasaad ula soconaysaa waxa weeye mawduuca waxa yacni qoyska wanaagsan haddaad tahay qof dumara saad u dhisan lahayd qoys wanaagsan yacni gabar walba waxay jeceshahay inay hesho qoys fiican nin wanaagsan oo dhaqda yacni caruur wanaagsan oo baari u ah oo ka dambeeya haddaynu nahay hooyooyin mise haddaynu nahay dumar sideedaba dumarka waqtigooga uu iska gaaban yahay waxa weeye hadday noqoto waqti yani ay ku dhalayaan hadday noqoto yani dhinac kastaba yani aad buu u gaaban yahay xataa waqtigu dhiigga ka dhammaanayo yani waa waqti short ah waxaad arkaysaa gabadha 40-30 kor markay u dhaaftaba waxa weeye caadadii menopause wax la yiraahdo ayay galaysaa allahumma salli ala maxamed markaa mawduucayga soomaaliya waxa weeye waxaan u jeednaa in ay qoysaskii soomaaliyeed ay aad u burbureen runtii aniga ka mulki ahaan runtii waan jeclahay gabdhaha soomaaliyeed aad baan u taageeraa sababtoo ah muu eego qabiil runtii
muu eego waxa weeye waa gabar oo maanta waxba haysan oo aanan xoolo haysan muu eego waa gabar Afrika joogto muu eego waa gabar yacni nolol oo low kusoo kortay mise nolol oo iska hooseysa ani qofka bini aadanka special hadeeba ila sheeganayso gabar Soomaaliyeed aad baan u jeclahay runtii social media meel walba aan uga jirana mar walba waxaan aad u taageeraa oo aan garab istaagaa waa dumarlaan inkastoo aan ogahay dumarlaan iyaga dhexdooda inay isnacib yihiin runtii oo qof kale waxba u ogoleen gabar kale waxba uma ogolo waana ta meeshana dhigtay runtii marka maanta waxaa laga yaabaa inay ila yaabantihiin qoyskayga inaan maanta social media aan soo galay baahi ima soo gelin runtii sababtoo waxay soo gelisay kaliya maadaama aan u jeedo in ay raggii iyo dumarkii ay kala safteen oo dumarkiinana ay leeyihiin ragga Soomaaliyeed way xun yihiin raggiinana ay leeyihiin dumarkii waxa weeye waxaan ku jirnaa waqti aqoonsamano haday tu Yurub joogto qurba joogto iyo haday tu Soomaaliya joogtaba way ilbaxeeno dumarkii indhaha u furmayo oo waxa weeye unrespect ay wada noqdeen waxa weeye gabdhihiinana way ordayaan oo waxay wada galeen ajaanib oo waxay leeyihiin ragga Soomaaliyeed waxay noqdeen dad oo eber oo waxa weeye aan rabin guryahooga inay dhaqdaan maadaama haddaan iraahdo 95% qoysaska Soomaaliyeed way burbureen hadday ugu badan tahay waa 5 ayaa ka caafimaad qabta runtii oo maanta gurigooga taagan yahay waa mujtamac oo dhan oo 5% Soomaaliyeed qoysaskooga taagan yihiin kuwaasnana waxa weeye waa lagu daba jiraayo xasad baa ku daba jiro oo waxa weeye dad oo aan u jecleen qoysaskooga waxa weeye wada gambanayaan oo waxay leeyihiin bal qoyskaaga haddii ma aragtay aad banaanka soo dhigtid ama ma aragtay lagu dhibaateeyo ama in lagugu dilaa iyo ilaahay haddaad ku xiran tahay oo aad tahay qof qalbi wanaagsan oo aad mar walba ma aragtay adkaarta aad aqrisanaysid oo mar walba aad salaadahaga ka tageen oo aadan qofna dhibaateeneen oo aadan ma aragtay dadka bini aadanka ka amaan heleen adankaagii afkaaga oo mar walba waxaad jeceshahay aad la jeceshahay qofka kale oo walaalkaaga wax dhibaato kuma gaarayo waxaan ku taaganahay aniga qoyskayga iyo odagayga iyo caruurtayda maasha Allah tabaarak idinkana mar walba inaa maasha Allah tabaarak aad isoo tiraahdeen ayaan jeclaan lahaa Soomaaliyeed marka qoyska ayaa mowduucayga wuxuu yahay waa qoyska saad u dhisan lahayd gabar yahay Soomaaliya oo idaawanayo qoys qurux badan hadday noqoto ka mulki ay haysato hadday noqoto ku kale oo adiga aad jeclaan lahayd inuu qoyskaaga noocaas oo kale uu noqdo saad u samaysan lahayd horta marka ugu horeyso waxaad ogaataan waxa weeye telefoon ay soo galayay saad u samaysan lahayd yacni marka ugu horeyso qoysku waxa weeye waa xaq dhowr qoyska haddaad rabtid inaad qoys wanaagsan aad samaysatid gabar yahay oo idaawanaysid horta qoyska wanaagsan waa wax ka yimaada qoraal mise yacni ilaahay oo qofka oo uu leeyahay yacni anaa kugu hadiyeeyey noloshaada ninkan wanaagsan naagtan wanaagsan ilmahan baariga anaa ku siiyay ilaahay ayaa bixiyo wax walba marka hore adoonan eegin gabadha walaashaada nolosha ay haysato wanaagsan aadan xaasidin aadan mar walba waa inaad tiraahdid maasha Allah ilaahayo iyada intay haysatana u siyaadi anigana isii inta iga maqan iyo inta iyada ay haysato oo la eg markaasuu ilaahay ku siini way fahamtay soo maahan qoyska wanaagsan gabdho yahow wuxuu ka bilaabmaa waa ninka iyo naagta inuu dhexdooda dhex yaalo jacayl qoyska lagu sheegayo wuxuu yani ku asaaskiisa hoose waxa weeye waa jacayl hadduuna ku dhisnayn qoyska oo aad u eegtid ninka waxa weeye wuu feeran weeyahay waxa weeye six pack uu leeyahay waa nin qurxoon waa nin ma aragtay lacag haysta waa nin ma aragtay hadal macaan waa nin aqli badan waa nin aqoon-yahana waxaas waxa weeye nolosha adaa samaysan kartid idinka ayaa ma aragtay samaysan kartiin noloshan oo taas
laakiin ta dhabta ah oo basicada ah waxa weeye labada qof dibli ma isku jecel yihiin ma israbaan yacni ma iska naxayaan oo waxa imaanayo gabowsha waxa imaanayo xanuun waxa imaanayo hadduu ilaahay yiraahdo naagta way jilcaysaa oo waxa weeye way dabci oo dhal yacni ilmay dhalaysaa yacni dulqaad ayuu yacni u baahan tahay naagta caadaa ku dhacdo yacni mar walba hormoonigeedu kacsan yahay yacni waxa weeye ninka hadduunan kuu dulqaadanin unan ku jecleen qoyska waxa weeye dhaqso u burburaya Soomaaliyeed anitan ogsoonahay aan qof ku qiimeeyo wasuu isaga ii jecel yahay runtii qofka markaad aragto inuu ku jecel yahay waa qiimeynaysaa anigana ma ihi dumarka oo ka badbadiya ninka markay arkaan dumaraa jiro runtii dumaraa nahay runta aan isku sheegno markaan aragno nin noo wanaagsan oo ma aragtay na dhacdacsanayo oo xabiibti ku leh yacni qofkii ku yiraahdo waan ku jeclahay Soomaalidu waxay ku mamahdaa qofkii ku yiraahdo waan ku jeclahay waa inaad tiraahdid waa ku jantay daadisme waxa weeye ninkaaga markuu ku yiraahdo xabiibti oo ku garab taagan yahay oo 24 hours waxa rabtid oo ku sameynayo oo ku jecel yahay adigana inta in la eg waa inaad tustid ma ahan inaad tiraahdo waa doqonkii aniga ma aragtay maanta saarabi aan ka yeelayay anugu ii sixran yahay waa doqonkan gurigan ku dhaqdaa gurigan ku hagaajistaa waxa weeye lacagtiisa dhan jeebadan ku haystaa waxa weeye wuxuu kala ogyahay malaha gurigaas ii dhex fadhiyaa ma aragtay caruurtaas ila korinaya waa dhaadhaan aniga aan iska haysto waa dumarka qaarkood oo aqliga aadka u yar marka ninkan waa qof bini aadana si kasta u macaan yahay si kasta u dabeecad wanaagsan yahay si kasta ku jecel yahay marka ka badbadisid wuu ka tagayaa marka anu waxyaalaha aan rabo inaan meesha anigala wadaago aniga noloshayda runtii 26 sano ayaan isqabnaa ninkan aad u jeedin alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahayaana ugu mahadcelinaya waana ma sha Allah in idinkan ma sha Allah isoo dhaa mar walba waxa weeye labada qof muhiimka waxa weeye inay isfahmaan oo dhexdooda xaq dhowr yaalo oo jecel yaalo يعني dhexdooda يعني is jecel yihiin ka wada oo respectina uu jiro labada qof dhexdooda marka noloshu hore u soconaysa laakiin qiyaanaha hadii lagu dhiso qoyska oo yani aniga uunba yani danban ku galayaan qofkan lagu dhiso oo ma aragtay lagu dhiso waxa weeye yani in ii dhasho uun ilmaan rabaa يعني وحبا جيرين با wax la yiraahdo dadka aan istusno lagu dhiso yani bas aan guri baan leeyahay qawaan baan ahay nin ilmo loo haayo baan ahay waxba aadan ka ogeyn gurigaaga xaaskaaga waxay ku sugan tahay haday dhimanayso haday nooshahay haday silaysan tahay haday ilmaha la rafaadayso yani hadii ay maanta dib kasta ay qabto aad waxba kala socon waxa weeye aabbo ma noqon kartid hooyana la mid hooyana ma noqon karto naagta day noocaas oo kale tahay iska wareegayso maanta dhan kabasaarta ay u saaran tahay dhinaca oo aroos ay ka bixeen ani waxa weeye dhalinyarada markaan ahaa waan tagi jiray aroos laakiin hadda muddaba intaan ilmaha aan dhalay oo ninkaygan aan ma aragto waqti dheer aan isla nooleen ma sha Allah tabaarak 26 sano meesha kuma taalo waxaan go'aanstay inaan waqtigeyga aan geliyo ilmahayga iyo ninkayga gabar walba Soomaaliyeedna waxaan kula talinayaa ma rabtaa qoyskaaga inuu qurux badnaado bini aadanka ha ku mashquulin naagka ha ku mashquulin wax kale ha ku mashquulin ku mashquul ninkaaga iyo caruurtaada iyo gurigaaga hoos u ogow ninkaaga markaad ogaatid oo aad uu ku arko inaad tahay hooyo oo yani guri oo hooyo ma aragtay ani waan ahay hooyo guri oo ninkayga caruurtayda ma sha Allah tabaarak galaala inaga sheekeen doona taas taxanuun noqonaya kan ninkayga waxa weeye muku yani gurigayga hooyo guri fadhida oo ma ihi waxaan ahay naag wax baratay naag shaqaysata naag oroda 24 hours oo income soo galiso gurigeeda oo ma aragtay ma sha Allah caruurteeda dhan yani shaqo ku korsatay oo ceed intaan qaatay waa inta aan uurka leeyahay inta aan maxaa la yiraahdaa
oo aan haddaan xanuusto oo kale haddii shaqo la-aan igu dhacdo ma ahane inta kale waxaan jeclahay inaan ordo aan isdabero marna waxbaan baranayay marna waan shaqaysanay noloshayda intaan wadamadan aan ku noolaa qurbaha marka waxaan ka wadaa ma ihi hooyo oo guri fadhida ma ihi hooyo oo maanta la oran karo yani waxa weeye ilmaha iyo ninka bas u go'day isla sidaa iyadoo ay jirto ayaan haddana waxaan ahay hooyo gurigeeda ilmaheeda hoos u og marka gurigaaga xasilooni waxaad ku heli kartaa oo uuna kugu barakoobayaa waa marka hooyo rasmiya oo aanan dad ku xirneen oo asxaab ku xirneen oo ma aragtay muka oranayo dumar waxaa jiro keligooda aana jecleen inay socdaan laakiin aniga waxaan ahay horena waa inagu sheegay qof jecel keligeeda inay socoto oo asxaabteeda aad u yar yihiin dhibaato kastana waa ka badbaadisa Soomaaliya markaa tahay noocaas marka waxaan ka wadaa gurigaaga horta marka ugu horeysa qaybta maanta aan rabo intan ayaan rabaa inaan ku gooyo inta kale waxaan rabaa inaan taxana aan ka dhigo maalin walbaba in yar aan inaga sheego inta ugu muhiimsan oo aan maanta clipka u duubayo waa inaad qoyska aad ku bilaawdid wax la yiraahdo jaceyl respect xaqdhoor iyo in aadan ka badbadin ninkaaga maxaa la yiraahdaa markuu aad u aragtid inuu yahay nin ku dabacsan oo nin ku jecel adigana inta uu ku tusay inteeda aad tustid dumar waxaa jira dhibayaba ninka inuu guriga la joogo inuu wax la qabto aabihii rabo inuu caawiyo aabihii rabo inuu ag fadhiyo oo ma aragtay riixadeeda mise yani ka ag dhawaado oo mar walba uriyo riixada ka soo baxaysa oo udgoon ayay dhibsanaysaa ma rabto waxay leedahay ninka muxuu ku ag fadhiyaa waa iska sheekeyn lahaa dumar telefoon aan la sheekaysan lahaa oo anaa ma aragtay xor noqon lahaa ani laakiin opposite aan ahay ani waxaan jeclahay waxaan ku dareemaa xasilooni iyo deganaansho markuu ninkayga hoosta igaga jiro markuu i ag fadhiyo markuu ila sheekaysanayo markuu caafimaad qabo markii ma aragtay mornan waa isa sii baranaysiin marka isla sheekaysatiin waqti aad isgelisiin Soomaaliya marka hadal iyo gunaanadkiisa waxaan ku soo gabagabeynayaa yani klibyadan taxanay noqonayaan maanta laakiin yani arinka aan u soo galay waxa weeye ninkaaga jaceyl ka samayso naagtaada jaceyl ka samayso dhexdiinana xaqdhoor ha yimaado oo wax xaqdhoor la yiraahdo ha jiro markaas ayuu qoyska hore u soconaya سدا ينبت قلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته